Faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay shaaha rinjiga. Tirtiridda maaddooyinka aan weli falgelin. Maaddooyinka aan weli falgelin waxay jirka u keeni karaan khataro badan sida kansarka atherosclerosis oo ah xanuun ay xidid isku xandaafto gudaha xididka iyo weliba dhiigga oo xinjirooba. Markii uu shakhsigu isticmaalo cuntooyin aysan sixooda fiicnayn, waxaa kor u siyaadaya maaddooyinka aan weli falgelin. Shaaha rinjiga ahna waxaa ku jirta maadada antioxidant oo ah mid ka ilaalinaysa in oksijiinku uu isku laalo chemicalska jirka si uu uga dhigo oxidant, sidoo kalena ka ilaalisa xanuuno badan ee jirka. Habka difaaca fiican. Shaaha rinjiga waxaa ku jirta walaxda alkyl amine oo ah walax soo saarta ficilcelin ka dhan ah waxyaabaha khatarta u keeni kara difaaca jirka ee ka imaanaya bannaanka. Sidoo kalena shaaha bigayska waxaa ku jirta aashitada tannins taasoo leh awoodda ah in ay la dagaallasho fayrasyada kana ilaaliso hargabka, hargab caloleedka iyo fayrasyada kale ee noocaan ah ee saameeya nolol maalmeedkeena. Caafimaadka afka. Cabidda shaaha rinjiga ah wuxuu dilaa fayrasyada afka. Maadada catechin antioxidant ee laga helo shaaha rinjiga ah waxay hoos u dhigtaa fursadda kansarka afka. Shaaha rinjiga ah wuxuu yareeyaa koritaanka bakteeriyada sababta saabka. Sidoo kalena waxaa ku jirta fluoride kaasoo la dagaallama af urka kana ilaalisa ilkaha suuska. Kansarka naasaha. Cabidda shaaha rinjiga ah waxay haweeneyda ka ilaalinaysaa in kansar uu ku dhasho naaska, gaar ahaan haweeneyda aan weli gaarin da'da ilmo-galeenka. Bigaysku wuxuu caawiyaa kor u qaadida heerka hormoonada globulin ee xilli caadeedka dheddigga. Sidoo kale, shaaha rinjiga ah waxaa ku jirta maaddooyinka kale ee ay ka mid tahay cephalin taasoo burburisa unugyada aan caafimaad qabka ahayn. Kicinta maskaxda iyo habdhiska neerfayaasha. Shaaha rinjiga ah waxaa ku jirta maadada caffeine oo heerkeedu hooseeyo marka loo fiiriyo qaxwaha. Heerkan hooseeya ee caffeine-ka wuxuu horseedaa socdaalka dhiigga dhammaan unugyada maskaxda, iyadoo ay ka reeban tahay wadno garaac. Waxaase usii dheer, feejignaan iyo ka fiirsasho. Amino acid-ka L-theanine ee laga helo shaaha rinjiga ah wuxuu kaa caawinayaa inaad nasato, awoodna aad saartid shaqo maalmeedkaaga. Baaritaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday isticmaalka badan ee shaaha rinjiga ah inuu ka hortago xanuunka Parkinson's disease oo ah xadid la'aanta iyo isku dheelitir la'aanta maskaxda qofka. Caafimaadka wadnaha. Shaaha rinjiga waxaa ku jira maadada antioxidants sida flavonoid oo ka ilaalisa oksijiin inuu isku laalo kolestaroolka nooca LDL, kana hortagta cillad ka hortimaada socdaalka dhiigga iyo durrada xididka, hoosna u dhigaysa khatar xagga wadnaha. Sidoo kale, tijaabo la sameeyay ayaa lagu ogaaday flavonoid-ka ku jira shaaha rinjiga inuu socodsiiyo dhiigga fayoobay, kana dhigo dhiigga mid xawaarihiisii caadiga ah ku socda. Aad ayaad ugu mahadsantahay. Sidoo kale daawo xooji ragnimada adoo joogtid xaafadda iyo faa'iidooyinka caafimaad ee liinta.